kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Hadda janaalka Barca 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda. Muuqaalkan shirgareeya mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal. Haddii aan ku bilowno kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xal ciyaartay kulanka tartanka UEFA Champions League kaas oo la ciyaareen kooxda Dynamo Kiev kulan ay ku wada ciyaareen garoonka Camp Nou Stadium. Haddii aan fiirino shacadi xalay ay ku soo gashay kooxda kubadda cagta Barcelona dhanka goosh waxaa ku soo bilowday Marc-Andre ter Stegen, afarta daafac waa Sergio Dest, Gerard Piqué, De Jong, Jordi Alba, khadka dhexe waa Sergio Busquets, Pjanic, weerarka waa Pedri, Leo Messi, Ansu Fati, Anthony Griezmann. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu qanaastay hal gool iyo eber ay ku hogaaminaysay kooxda Barcelona. gool koowaad ee Barcelona waxaa bilanta u dhaliyay Leo Messi. qaybta labaad markii dib la isku soo laabtay labada kooxood waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan ayagoo loo firikil goolal, hase yeeshee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la timaaday goolka labaad waxaana ciyaarta 2 gool iyo eber ka dhigay daafaca reer Spain iyo kooxda Barcelona Gerard Piqué. ugu dambeyn ciyaartii xalay wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Dynamo Kiev ayaa ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool ayna ku badisay kooxda Barcelona. kooxda Barcelona ayaa group G hogaaminaysa 9 dhibcood ay ku haysaa. kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Juventus 6 dhibcood ayay leedahay. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda Dynamo Kiev 1 dhibic ayay leedahay. kaalinta afraad waxaa ku jirta kooxda Fenerbahce FC 1 dhibic ayay leedahay. taageere kulanka xalay haddii aad daabatay sidoo ah qaab ciyaareedkii xalay gulahay Marc-Andre ter Stegen commentigaada noogu soo reebo aad ku maasantiin daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.